warbixin kooban ayaan waxaan idinkaga diyaarnay taariikhda fanaanadii caanka ahayd Allahu naxariistay Xaliimo Khaliif Magool. warbixintaas waxaa soo koobaya Maxamed Deeq Sirjito. haddii aan ku bilaabo magaceedu saddexan waa Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxaana la sheegay inay ku dhalatay gobolka Galgaduud caasimadiisa Dhuusamareeb. Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxaa dhalay caalim si weyn loogu yaqaano guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee dunida. Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxay dhalatay 1948 Magool ayadoo yar ayaa waxa loo soo guuriyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxayna markaasi ay ku soo kortay guriga abtigeedii oo markaasi la oranayay Maxamed Xaaji. kadib waxa ay timid magaalada Hargeysa halkaasi oo fanka ay ka soo gashay. muddo kadib waxay dib ay ugu soo laabatay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka taasoo noqotay goobtii fankeeda uu ka hana qaaday. heestii ugu horeysay oo ay qaaday fanaanada Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool ayaa dadku waxa ay ku sheegaan inay tahay heestii la oranayay inay tahay Banaadiri waxaana heestaasi ay noqotay heestii ugu horeysay oo dadka ay ku maqleen Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool. bilowgaasi kadib Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxa ay noqotay inay soo qaado heese isdaba joog ah. fanaaniinta xilligaasi jiray iyo abwaanada wax qora ayaa intooda badan loolan ugu jiray inay qaarkood heesaha ay la qaadaan kuwa kaleetana heesii ay curiyeen inay dib ay u qaado Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool. haddaba Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxay ahayd fanaanad codkeeda ay aad u jeclaysteen bulshooyinka Soomaaliyeed waxaana taariikhdeeda aad loogu xasuustaa inay heesaha ay qaadi jirtay ay ka mid ahaayeen jacayl iyo heesaha wadaniga ah. waxayna ay ku soo aanbaxday Xaliimo inay qaado heesaha gubaabada ee ku saabsan dalka iyo guud ahaan Afrika. heesta Afrika ay hurudooy ayaa ka mid ah heesaha Xaliimo Khaliif Cumar Barre dib loogu xasuusto aadna loogu xuso. waxayna heestaasi ay ku qaaday halkii ay fadhiyeen madaxda midowga Afrika. heestaasi kadib waxaa jiray abwaaniin fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo doonayay inay heeso fara badan ay u dhibaan Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool. waxaana ka mid ahaa abwaaniinta loolanka ugu jiray inay Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool ay u dhibaan heeso abwaanka la yiraahdo Maxamed Cali Kaariye, Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganay, Cabduqaadir Cali Cigaal Ciro, abwaan Qurbaawi Cabdi Maxamed Amiin iyo kuwo kale aad u fara badan. haddii aynu soo qaadano heesta jacayl dhiigma lagu qoray ayaa waxa ay ka mid tahay kalimaha sugaanta ay aad ay u qadariyaan dadiyowga Soomaaliyeed waxayna ay saameyn ku yeelan kartaa qof walba oo dareemaya jacaylka dhabta ah. heestaasi kadib waxaa jiray heeso fara badan ay qaaday Xaliimo oo dadkuna ay aad u jeclaysteen waxayna dadka ay ka wada sinaayeen dhageysiga iyo jeclaysiga heesaha ay ku luqayso fanaanada Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool waxayna ay lahayd shacbiyadii ugu badneyd ee xilligaasi fanaan uu yeesho. 19 bishii 3 sanadka 2004 ayay ku geeriyootay Allaha u naxariistay Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool magaalada Amsterdam ee dalka Holland. wax caruur ah maysan dhalin Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool hase yeeshee waxaana lagu aasay duleedka magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana loo sameeyay aas qaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Allaha u naxariista ayaan leeyahay Xaliimo Khaliif Cumar Barre Magool iyo intii kale ee markaasi ay dhimatay. toddobaadkan intaasi ayaan ku hakinaynaa xasuusta fanaanka ee aynu soo qaadanay. Maxamed Deeq Sirjito, RTN TV, Baydhabo.